السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبة قيمة هي قدر انت مدن سيدا توسك نغلا سودا برتنا galka media isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan waan rajaynayaa adigoo caafimaad qaba in aad mar kale halkan ku soo laabatay saaxiibayaal waxaan doonaynaa inaan halkan idin kula wadaagno agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo saaka tagay xarunta markaa nabad sugidda ee Habar Qadiijo ayaa waxa uu markaa codsaday in dib loo furo faylasha guud ahaanba ee kiiska Ikraan Tahliil marka hore muuqaalkan waxa waajib kugu ah inaad share gareyso marka xigta waa in aad like saarto oo aad la sii wadaagto saaxiibadaada kale balse xogtan waxaan doonaynaa ee xasaasiga ah Mahad Salaad iyo waliba ugu horeyn saaka oo markaa meesha ugu horeysay uu tagay waxa uu markaa ku soo dhex arkay saddex ujeedo ayaa la sheegay in markaa agaasinka uu u tagay xarunta Habar Qadiijo ee nabad sugidda markaa looga ahrimiyo xogaha isa soo taraya waxa ay tilmaamayaan in guud ahaanba xilligan dhinacyo kala duwan ee iyagu xaqiijinayaan durbaba in ay markaa loolanka adag ee xilligan kiiskaasi Ikraan Tahliil uu u wajihi doono ayaa xilligan warka uu nagu soo gaaraya waxaa la sheegay in guud ahaanba uu amray in dib looga shaqaysiiyo kaamirooyinka CCTV-ga ee xilligaasi iyagu la damiyay taa oo dad badan ay markaa ku sheegeen in xilligan siyaasadaha uu la soo baxay Mahad Maxamed Salaad ay tahay qorsho lagu diyaarinayo barnaamijka iyo waliba kiis galeedka ee xilligan galka u diyaarsan Ikraan Tahliil waxaa la sheegay in uu la kulmay taliyihii goobtaasi haystay waxa uu xog dheeraad ah ka siiyay kiiskan iyo waliba halka uu ka soo bilowday taliyihii waxa lagu yiri maanta dalka ayaa ku baahan maanta dalkaaga iyo dadkaaga waxa ay raalli kaaga noqon karaan inaadan qarin dulmiga waxaan ku ballan qaadayaa ayuu yiri Mahad Maxamed Salaad in haddii aad xogtan soo bandhigto iyo kiiskan cidda uu ku lug leeyahay inaanan annagu meel walba oo ay joogaan aan u bareeri karno khatar kaaga imaan kartana haba yaraatee aysan jiri doonin durbaba waxaa markaa abuurmay in guud ahaanba arrinka iyo waliba sida ay wax u jiraan iyo sababaha waxa uu ka dhawaajiyey kaamirooyinkii meesha ku xirnaa ee muuqaalada qarsoon duuba waxa markaa sababteeda u ahaa in loo damiyo waxa ay dhinacyo badan xilligan muujiyeen in guud ahaanba si weyn ay ugu faraxsan yihiin xogta sheegaysa in guud ahaan arrinkan loo abaari karo taliyihii goobtaasi haystay waxba ma uusan ka qarin xogta guud ahaan marka la isbarbar dhigo xogaha ay kiiskan ku aadan ayaa marba marka ka sii dambaysa iyadoo markaa bannaanka u soo baxaysa muuqaalada xilligan oo dib loo fasaxo waxa ay sidoo kale abuuri karaan in guud ahaanba xilligan kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyay hakad ku jiray in isagu markaa uu noqdo kiis furan oo galdacwadeedkiisa laga furo maxkamadda ciidamada qalabka sida wararkii ugu dambeeyay waxa ay tilmaamayaan in arrinkan ay markaa si toosa u gudagali doonaan dhinacyada ay qusayso warar soo baxayana waxa ay tilmaamayaan in Mahad Maxamed Salaad oo isagu ah agaasinka cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka la sheegay in kiiskan fursado badan uu isagu ka dhex arkayo kow in markaa magac iyo sumcad iyo maamuusba uu isagu ku samaysan karo labo in uu markaa noqon karo qof markaa hay'addan sii haya dambiyada iyo faldambiyadida dhacayay laga cararo oo markaa ay noqdaan kuwo la isagu dabagalo xitaa kiisas badan ayaa bannaanka imaan doono halka loo yaqaano godka jilicow ayuu booqan doonaa oo dad badan ay ku xiran yihiin bilaa dembi ah sida ay xoguhu tilmaamayaan balse waxaynu ogaan doonaa maalmaha soo socda oo kiiskan 24 saac ee soo socda xogtiisa oo idilba ay bannaanka imaan doonto sida dhinacyo kala duwan xaqiijinayaan muuqaalka noo sii sheergalay haddaba su-aasha aan doonayna inaan halkan kula wadaagno waxa ay tahay marba haddii Mahad Maxamed Salaad kiiskan uu guda galayaad isleedahay way ku caddaan doontaa adigoo cidna u gafin muuqaalka qaybta hoose nagula wadaag afkaartaada
sii sheergaray muuqaalka si dad badan u gaaro nabadgelyo